مبارك كل عام وأنتم بخير ميقستو ضافه الدين كجوجتان عيد wanaagsan dhammaan ummadda islaamka inta afka Soomaaliya ku hadasha iyo inta naga daawanaysa telefishinka caalamiga Aerial TV halkani waa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxa maanta bulshada ku dhaqan magaalada Boorama u dareereen munaasabada ciid ul-adha iyo bulshada isugu hambalyeynayeen munaasabadaasi waxaana telefishinka caalamiga ee Aerial TV uu fursad u siiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal inay halkan ka salaamaan ehlada asxaabta qoyska qaraabada iyo cid kasta jecel yihiin inay la wadaagaan hambalyada munaasabada ciid ul-adha وكون هذا بدويني كردوانا الله اللي تلفزيون كأريال تي في اسمها تنصران هو ذو مريي قصص كوجا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير وحنادي هذوهم بليين يا دمان ومد مسلمين تا ملك استوي شوجان كارهان ومد رئيس ومالان وحنكوهم بليين يا عيد وناكسن عيد الأضحى وحن لها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومالين وين ومالين غالية ومالين runtii maalmaha ugu qaalisan adduunka ay ka mid tahay ka caafimaad ahaan iyo ka bulsho ahaanba waxaan ilaahay haynaga aqbalo acmaashii saalixaadka ay soo sameynay inta dambana ilaahay hayna waafajiyo inteeda wanaagsan aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan fariin xalkan uga dirayaa dhammaan bulshada qaybaheega kala duwan oo ku saabsan caafimaadka bulshada waxaan leeyahay haan adkayno ka hortagga COVID-19 sababtoo waxay tahay wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay ku heelan tahay siday dadka uga haqabtiri lahayd dhammaan baahiyaadka kala duwan ee caafimaadka sidaasoo tahay waxaan mar kasta iyo waqti kasta iyo goob kastaba aan leenahay oo bulshada u soo gudbinaynaa inay waafaqaan oo ay raacaan tixraaca ah ka hortagga caabuqa COVID-19 kaasi oo ah in la joogteeyo kala duruqa in la joogteeyo wax kasta oo uu ku faafayo oo ay ku ka tahay in nadaafadda la ilaaliyo aad iyo aad baan runtii bulshadana aan ugu dhiirigelinayaa ciid wanaagsan كل عام وأنتم بالخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جودهان ومضى إسلامك مال الجوجان بوحنا لنا عيد وناكسن إلى عيد بش برواقه عافمات إلى نوجرس الصلاة والسلام على رسول الله وبعد كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد وناكسن لما أمد الرئيس سوماليلاند ملك استي جوجان وحنا عيد وناكسن عيد فرحة عيد الأضحى ملك استودنكو عيدة كل عام وأنتم بخير وحن أرجينا يا دمان أمد سوماليلاند إلى هي أعماش كأقبله عيد الأضحى فلقينا دمان شقالوينها وزارة عافمات كانوا نحبلينها هو وزير كعافمات وزير كعيان كقاسمها هي دمان شقالها عافمات هير قبل هير دقمو هير قرنبه وحن لها كل عام وأنتم بخير وأن السلام يا عيد وناكسن عيد ذا إلهي نوجارسيو بش يا برواقة يا عمر دار يا عافمات maanta oo ay tahay maalintii ciid al-adha al-mubaarak waxaan dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland aan ku leeyahay gaar ahaan shacabweynaha reer Awdal ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ilaahay ciideeda bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo ilaahay kuwa maxadanay ciida si farxad u ciida ilaahay naga dhigo waxa kale oo halkan ka salaamaya dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha dalka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka dalka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo golayaasha kala duwan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ilaahay ciida farxadeeda ilaahay naga dulqaado xanuunadii halista ahaa ee u dambeeyay ee coronavirus dhammaan waxaan leeyahay ummadda shacabka muslimiinta meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bikhair كل عام وأنتم بخير عيد مبارك عيد مبارك وما سنتين دمان صحفيين صحافتنا وسلام يا عيد مبارك يا سلام ياسين أبويو ولا الله دمان عيد مبارك همبلي وان لي هاي عيد الأضحى وعيد خير له ومدة سوماليلاند وردن دمانتود وحن لي خير كعيدة بش كعيدة يوم مدة مسلم كابا وحنا نبليان كانوا قدروا يا قدوميها فيصل على ورابة حسبي عدالة دريالك أيان نبليان كانوا قدروا يا دمان حسبك نبليان لي كوارا عيد وناكسن
halkan waxaan jecelahay inaan munaasabada qaaliga ah ee ciida Carafa uga diro dhammaan ummadda islaamka meel walba caalamka joogan gaar ahaan ummadda reer Somaliland iyo bahda xisbiga wadani meel walba joogan waxaan leenahay sanadkiisa aynu ku gaarnaa bash barwaaqo iyo horumar insha Allah waxaan kaloo halka ka salaamayaa waalidkay iyo walaalahay iyo asxaabteeda iyo bahda saxaafadda ee gobolka Awdal ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair dhammaan shacbiyanaha reer Somaliland waxaan leeyahay ciideeda Ilaahay ku gaarsiiyo bash barwaaqo sidoo kale Ilaahay hayda ka aqbalo dhammaan acmaasha taminaysan sagaalkii cisho u dambeysay waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ciid mubaarak sidoo kale waxaan salaamayaa waalidkayga meelkasta joogan iyo asxaabtayda meelkasta ku ciidayaan guud ahaan gobolada kala duwan ee Jamhuuriyadda Somaliland oo leeyahay ciid mubaarak ku ciida caafimaad waxaan halkan ka ambaleynayaa dhammaan ummadda islaamka meelkasta ay joogaan gaar ahaan ummadda reer Somaliland gaar ahaan reer Boorama gaar ahaan familigeyga waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khair waa maalin weyn waa maalin ciida waa maalin ciid al-adha dhammaan muslimiintu meel kasta ay joogaan waxay ku ciidayaan farax iyo bashashi barwaaqo waxaan ka salaamayaa familigeyga ugu horeyso walaalahay asxaabtayda meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khair ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta waxaan u rajaynaynaa ciid mubaarak baan leenahay ciidul adha waa ciidda waxa weeye munaasabad aad u qaaliya ku jirta waa maalinta waxa weeye la taagan yahay la marayay Carafo waxaan leenahay Ilaahay kuwa xashka tagana ka aqbalo annagana acmaasha saalixaadka ee soonkii shalay Ilaahay anaga aqbalo caalamul islaamna waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khair munaasabada ciidda darteed waxaan ka faa'iideysanayaa hooyaday macaan aad u jecelahay baan hambaliyada koobaad ku horeysiinayaa gaar ahaan xaafadeeda aabahay si kale waxaan u salaamayaa ka yaro waxa weeye suuqa Djibouti noogu yimid oo shodahayga iyo xaafadooda familiga dhammaan ummadda islaamkana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khair buurmiyo roob ciid iyo farxad marka hore waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacweynaha Somaliland meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxaan leeyahay sanadkiisa Ilaahay bash barwaaqo u gaarsiiyo waxaan si gaar ah u salaamayaa familkeyga guud iyo dibadba gaar ahaan oo hooyada ugu horeyso waxaan leeyahay farxad ku ciida taqabbal Allahu minna wa minkum a'maal salih xagana waxa ku jooga akhyaartii boqoradii oo ka qayb qaadan doona xageen salaameysa hooyada yaayeeyay qodasta yaabahay maanta waxa weey ciid farxad bush arwaaqa lagu ciido salaamay ayadii hooyada yaabahay iyo kale yaabtigay ciid mubaarak dhammaanba ummadda islaamka meel kasto ay caalamka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak Ilaahay ciideeda haynagu gaarsiiyo caafimaad qab bash iyo barwaaqo waxa weeyaan dhammaan gaar ahaan ummadda Soomaalida ayaan u dirayaa hambaliyada ciid al-adha waxa kale oo aan ka salaamayaa dhammaanba asxaabtayda ardaydayda waalidiintayda iyo runtii waxa weeyaan cid kasta oo waxa weeyaan islaama Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxa kale oo salaamayaa dhammaanba madaxweynayaasha Soomaalida meel kasta ay maamulaan iyo meel kasta ay madax ka yihiin aad iyo aad baan u salaamayaa halka waxaan si gaar ah uga salaamayaa TV-ga Ariel iyo walaalka Mustafa Caraale oo aad u taageero tabintiisa sidaas la mid ah waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha magaalada Boorama oo aan maanta ku riideyno iyo shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo dhammaan Soomaalidu meel kasta ay joogto waxaan u rajaynayaa ciidan iyo ciido fara badan caafimaad qab nasri horumar iyo waxa weeyaan nolol maanta taaynu ku jirna dhaanta waxaan aad iyo aad sidoo kale u salaamayaa familiga meel walba ay joogaan iyo asxaabtayda aad iyo aad badan kuna umaatantiin caam waantum bikhair waxaan leeyahay hambariyo ummadda muslimka meel kasta joogaan oo leeyahay caafimaad ciida waxaan hambariyo ciido u diray halkan ugu diray hooyaday iyo aabahay iyo waalid dhammaan ummadda muslimka meel kasta joogaan leeyahay kullu caam waantum bikhair kullu caam waantum bikhair guud ahaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer Somaliland iyo Soomaali guud ahaantiiba waxaan leeyahay ciideeda Ilaahay bash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo si gaar ah waxaan halkan uga salaamayaa dhammaan familigeyga aan xadaanay ka tirsanahay
family gaafane iyo family manata ayaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa maamaday saada xaaji manatana aad iyo aad baan u salaamayaa guud ahaan bahda warbaahinta gobolka Awdal ka tirsanahayna waxaan u rajaynayaa ciideeda inuu Ilaahay bash barwaaqo nagu gaarsiiyo iyo cimri dherer iyo caafimaad koobaad waxaan salaamayaa hooyada iyo aabahay marka labaadna waxaan salaamayaa dhammaan bulshada muslimiinta meel kasta oo ay daafac caalami ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr Ilaahay ciideeda ha nagu gaarsiiyo barwaaqo bash iyo waliba caafimaad qab iyo cimri dherer mar saddexaadna waxaan salaamayaa bahda warbaahinta gobolka Awdal aan ka tirsanahay sigaarna waxaan salaamayaa wariye Cimraan iyo Mustafa Caraale waxaan leeyahay saaxiibiyal ciid wacan wanaagsan abad ma santii kullu caam wa antum bil khayr waxaan hambalyeynaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan Soomaalida iyo ummadda reer Somaliland reer Boorama dhammaan waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay waxaan caafimaad weydiinayaa intaas u soo toosi weeday inay ummadda kala qayb qaataan maalinta farxadda ciida sidoo kale waxaan u ducaynayaa cid kaste oo maaragtay ay ka soo qayb gali way qaar iyo cidii nabadgeliyo la'aan xitaa uga qayb gali weeday intaba waa maalin farxadeed ilaahay waxaan weydiinayaa inay qof walba wixii qalbigiisa ku jira uu siiyo ummadda islaamkana waxaan leeyahay farxadku ciid mubaarak wa kulli caam wa antum bikhair Allahu akbar bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa muslimiinta dhammaantood ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan oo munaasabada ciidul adha darteed si gaar ah waxaan hambaliyo ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan aad u bogaadinayaa ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto oo ay ugu horeeyaan madaxda wadanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka marwooyinka qaranka iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland gaar gobolkan jooga ee Awdal ayaan hambalyeynaya guud ahaan iyo si gaaraba maanta waa munaasabadii ciidul adha wax dheer oo la oran kara male waan u hambalyeynayaa Ilaahay ciideeda hay nagu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo nabad iyo khayr iyo ixtiraaf buuxa hambaliyo dadka reer Somaliland iyo muslimiinta daafaha dunida ku nool dhammaantood ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Somaliland gaar ahaan ummadda gobolka Awdal moogtahay gaar ahaan magaalada Boorama waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid adha mubaarak ilaahay acmaashii moogtahay aanu soo qabanayna maalmahan iyo maalinta carafo moogtahay jazaayiga ilaahayna siiyo dhamaanteen leeyahay sidoo kale waxaan aad u salaamayaa warbaahinta Area TV waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan asxaabtayda inta muuqiga garanaysa inta walaalaanahay inta dari lahaan walaalaanahay dhammaantiin waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Somaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak maanta waxa isku beeray laba ciidood waa ciidii adxada iyo jimcadii waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo jawi degan oo roob waliba kullu caam wa antum bikhair dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhammaan dadka reer Awdal waxaan leeyahay ciid mubaarak ciideeda Ilaahay bash iyo barwaaqiyo nabad qab ha nagu gaarsiiyo waxa kale oo nagu ducaynayaa duca labaad oo leeyahay ciideeda Ilaahay saamigeena dhammaystiran gaarsiiyo munaasabada ciidul adha darteed waxaan hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ciideeda Ilaahay bash iyo barwaaqo iyo amni ha nagu gaarsiiyo intaas daawada waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka salaamaha ee ciidda adha oo ka soo tabeynay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal barnaamijka waxa idin soo diyaariyay anigoo Mustafa Caraale iyo Cimraan Xuseen Aadan intaanu dib u kuli doono waa anigoo Mustafa Caraale ku dhaafay sidaas iyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair